jira maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatana ka haysta siyaasadda Soomaaliya aniga ku hadlay afka beesha Facaysade waxaan ka cabanaynaa beelaha beesha aan walaalaha naayay Mareexaan beesha sida waa Facayay Mareexaan saamiga sida lagu soo qaatayna dhamaan waxa qaatay beesha Mareexaan saamiga sida lagu soo qaatay hadii aan idin sharaxo oo wax yar halkaas dul istaago dawladda federaalka ah 14 xildhibaan iyo 3 senator bay beesha sida ka heshay 17daas xildhibaan waa beesha Mareexaan maamul goboleedka Jubbaland waxay ka heshay 19 xildhibaan 19 kaas xildhibaan waa beesha Mareexaan dawlad goboleedka Galmudug waxay ka heshay 16 xildhibaan 16 ka xildhibaan waa beesha Mareexaan intaas oo aan idin soo sheegay oo 52 xildhibaan oo matalaada golaha shacabka ah dhammaan waa beesha Mareexaan bay ka soo jeedaan hal qof oo Facaya kuma jiro waxaan rabaa inaan ka hadlo kale dhibaatada kale oo ay noo geysteen ba kamid ah in dhaqankii iyo ugaasyadu ay sheegtaan ugaasyada oo ayna ahayn ugaasyada oo ay yihiin ugaasyo Mareexaan oo aysan ka hadlin arintan annaga nagu dhacday waxana kama hayo dhibaatada jirta waxay tahay oo aan raba halka inaan ka sheego nimanka dhaqanka sida sheegtay iyo ugaasyada hadii aan nahay Facaya nama matalaan waa ugaasyo Mareexaan waa dhaqan Mareexaan naguma matalaan magac sida waxaan kala rabaa inaan halkan ka hadlo aan ka sheego xildhibaanada dawladda federaalka iyo senataradu dhamaantood naguma matalaan magac sida waxaan kala rabaa halkan inaan ka sheego xildhibaanada maamul goboleedka Jubbaland naguma matalaan waxaan kala rabaa inaan sheego kuwa Galmudug naguma matalaan waxaan rabaa oo kale inaan sheego wasiiradu naguma matalaan golaha wasiiradu naguma matalaan magac sida Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane wararka Hon Cable TV magaalada Kismaayo.